Escobar, gaangistarkii ugu weynaa ee ka ganacsan jiray mukhaadaraadka, waxa uu dhashay sanadkii 1949 isagoo ka dhashay family fuqara oo beeraley ah. Da'diisu markii ay ahayd 35 jir, waxa uu noqday ninka ugu taajirsan adduunka sababtoo ah waxa uu noqday boqorka xashiishadda kokainta iyo heroin-ta ee Colombia. waxaana uu ahaa ninka kale ee caalamka oo dhan u kala gudbiyay xashiishadda. Dhammaadkii 80-meeyadii waxa uu 80% dunida u dhoofin jiray xashiishadda kokainta. Warshadaha Escobar waxay ahaayeen qaar suuq ku leh Ameerika, waxaana uu ku magacaabnaa ninka 7aad ee ugu taajirsan adduunka, oo lacagtiisu dhammayd $300 milyan Mareykanka ah sanadkii 1987 ilaa 1993, iyadoo lacagtiisuna buuxisay bangiyada heer uu gaadhay inuu bishii kasta iibsado qasnado oo uu ku gurto lacagtiisa, waxaana lacagta weygii soo gashay gaari jirtay $36 milyan, isagoo xilli uu dalxiis ula baxay carruurtiisa gubay $2 milyan Mareykanka kaliya si carruurtiisu dugsoon uga helaan. Ninkani waxa uu ahaa mid samaystay dowlad u gaar ah oo xukuumadda Colombia ku adkaysay inay wajahdo ninkan. Markii ugu horeysay ee dowladdu isku dayday inay faragashato arrimihiisa, waxaa natiijadu ahayd dhimashada 3 musharax, wasiirkii cadaaladda, 700 oo qaadi iyo in ka badan 1,000 askari, iyo waliba 10 wariye. Haddaba markii xukuumadda Colombia ay ogaatay in aanay ninkan waxba ka yeeli karin, waxay la saxiixatay heshiis xidho, laakiin jeelka lagu xidhay ayaa ahaa mid uu isagu samaystay ama uu dhistay, oo aad u qurux badnaa kuna hareer yaalay fillo guriga reerkiisu ay degan yihiin. Haddaba gudaha jeelkani ayaan ahayn mid la mid ah jeelasha kale. Waxa ku yaalay goobo lagu raaxaysto iyo garoomo kubadda lagu ciyaaro. Ragga ilaalinaya waxay ahaayeen ciidankiisa, iyadoo dowladda ciidankeedu ka fogaayeen masaafo dhan 3 mayl, isla markaana loo oggolaa inuu la kulmi karo cid kasta oo soo booqata. Colombia waa ay aqbashay dalabkaasi, waayo waxay istaageen dhibaatadii iyo dilalkii uu waday, halka noloshiisa khaaska ahna uu ku noolaa beer weyn oo ku dhex yaalaan beero yaryar oo xayawaanka lagu xanaaneeyo, garoon diyaaradeed oo u khaasay, iyo weliba mid kubadda lagu ciyaaro. waxaad odhan kartaa Pablo waxa uu ahaa aabbo wanaagsan oo wiilkiisa aad u ilaalin jiray, meel kastana uu ka haysan jiray, isla mar ahaantaana aad ugu ilaalin jiray mukhaadaraadka, heer uu gaadhay inuu askartiisa gacan u qaado haddiiba ay isku dayaan inay sigaar ku qaajiyaan goobta uu ku sugan yahay wiilkiisu. Haddaba wiilkii yaraa ma uusan noqon sidii aabihii oo kale. Waxa uu noqday injineer iyo qoraa wax ka qora qisadii aabihii iyo waxyaabihii uu samayn jiray aabihii Pablo Escobar, isla markaana dambi dhaaf u weydiiyay dalka Colombia. sanadku markuu ahaa 1993 oo da'diisu ahayd, Escobar 44 jir, waxa uu dowladda Colombia iyo FBI-da Mareykanku isku waafaqeen in weerar lagu qaado goobta uu ku noolaa oo gacanta lagu dhigo. weerarkaasi waxaa ku dhintay 147 askari, 160 dad rayid ah, waxaana ku dhaawacmay 600 oo qof. gaaridiisii kadib murugadu waxay ahayd mid hadhaysay magaaladiisii. aaskiisiina waxaa ka soo qayb galay 10 qof oo ah faqradii uu caawin jiray Pablo Escobar. ilaa haddana Escobar waa mid aad magaciisa looga qadariyay magaaladaasi. sawiradiisii ayaad ku arkaysaa goob kasta, halka dhalinyarada magaaladaasi ay ku labistaan maryo uu ku sawiran yahay sawirka Pablo Escobar. in ka badan 100 buugaag iyo filimaan badan ayaa laga sameeyay noloshiisa. run ahaantii waxa uu ahaa Escobar nin aad u halis badan oo kaga qaylisiiyay dowladda Colombia iyo weliba dunida inteeda kale.